taariikhdu markay ahayd sanadkii 1979 gaar ahaan 20kii bishii Noofembar kadib markii laga baxay salaadii subaxyada dadka qaarkood ay iska akhrisanayaan quraanka qaarkoodna ay iska dikriyaan oo Ilaahay bariyaan waxa si kadis uga soo dhaxbaxay dadkii ku tukanayay masaajidka xaramka Maka ka badnaa 200 qof raggan oo hubaysnaa oo hogaaminayay shakhsi lagu magacaabay Juhaymaan al-Cutaybi iyadoo uu shaaciyay ninkaasina dadkii inuu soo baxay oo soo muuqday mahdigii la sugayay waxayna ka dalbadeen ninkan iyo kooxdiisii dadkii ku tukanayay masaajidka inay la baayactamaan mahdigan iyagoo cidii diidana ku qasbaya oo ugu hanjabaya hubkan ay siteen inay ku dili doonaan haddii ay sameyn waayaan sidaas arrinkaasina wuxuu ahaa mid gilgilay oo ka naxiyay dhammaan caalamkii islaamka kana keenay xaramkii sharafta badnaa makaan iyo goob cibaado oo ay dadku waajibaadkooda ku gutaan una bedelay goob dagaal oo dhiig badan ku daatay gudaheeda maalintaas waxay ahayd balaayo aad u weyneyd oo aanay iloobi doonin taariikhdu haddaba yuu ahaa ninkaasi lagu magacaabay Juhaymaan ay sameeyay sida ayna ku soo galeen oo ay ku soo geliyeen hubkan xaramka sharafta leh markii dambena sida ayaa looga saaray raggaas oo looga badbaadiyay dadkii iyo masaajidkiiba muuqaalkeena maanta ayaan ku ogaan doonaa waxaasoo dhan ay la soco ilaa dhammaadka wuxuu dhashay ninkan ay ku saabsan tahay dhacdan ee lagu magacaabo Juhaymaan al-Cutaybi 16kii bishii Sebtembar ee sanadkii 1936 wuxuuna ku dhashay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga muu helin Juhaymaan al-Cutaybi yaraantiisii waxbarasho wanaagsan aqoontiisuna waxay ahayd mid gabaabsiya oo iska yar waxaana lagu yaqaanay inuu ka tagay waxbarashadiisii markii uu gaadhay fasalka afraad ee dugsiga hoose isagoo intaa kadibna ka shaqeeyay oo noqday darawal wada baabuurta dawladda muddo 18 sannadood ahayd dhammaan dadkii yaqaanay Juhaymaan waxay ka markhaati kaceen inuu ahaa qof leh shakhsiyad awood badan oo maamul leh sidoo kalena uu awood weyn u lahaa inuu saameeyo uu raadin karo dadka kale iyadoo ay jirtay hoos u dhac ka haystay ninkan heerkiisa aqooneedna haddana midaas beddelkeeda wuxuu lahaa awood ah inuu ku saameyn karo dhalinyarada afkiisa iyo hadalkiisa uguna shubi karo dhalinyarada fikradihiisii uu aaminsanaa isagu sidaa darteedna wuxuu awooday inuu saameeyo tiro aad u badan oo dhalinyaro ahayd oo ku shubto fikradiisii intaa kadib wuxuu bartay Juhaymaan nin lagu magacaabay Maxamed Cabdillaahi al-Qaxdaani ninkani wuxuu ahaa isagu nin aqoon leh laakiin arrinka la yaab kale wuxuu yahay ninkani sidoo kale wuxuu raacay oo ku qancay fikradii Juhaymaan al-Cutaybi xiriirkoodiina uu sii xoogaystay ilaa Juhaymaan uu guuriyay ninkan lagu magacaabay Maxamed al-Qaxdaani walaashii sidaa darteedna xiriirkoodii uu sii weynaaday wuxuuna noqday Maxamed mid ku garab gala fikradihiisii inuu faafiyo Juhaymaan una raaco meel kasta uu tagayo waxayna bilaabeen intaa kadib Juhaymaan iyo saaxiibkii inay ku dhex faafiyaan fikirkoodii dhalinyarta fikirkaas oo marka la isku soo duuduubo noqonaya inay luusan yihiin dhammaan dadka iyo dawladduba dadkana waxay ku baaqayeen inay gooyaan oo ay ka hadhaan dawladda iyo sidoo kale warbaahinihii jiray xilligaas sababtaa waxay aaminsanaayeen sidoo kale in warbaahinahaasi ay luusan yihiin oo ay dadka dhexdooda ku faafinayaan been iyo dhibaato fikradihiisana dabcan waxa soo dhaweeyay oo ay soo dhaweyn ka heleen dad badan iyo qaybo ka mid ah masaajidadii yaryar ee ku yaalay dalka Sacuudiga waxayna bilaabeen taageerayaashiisii inay sii siyaadaan oo ay sii kordhaan marba marka ka sii dambaysa dadkii raacsanaa ee markii hore ahaa qaar faraha lagu tirin karaana waxay isku bedeleen tiradoodu kumanaan markii la gaadhay sanadkii 1399 hijriyadana wuxuu sheegay Juhaymaan ninkii qabay walaashii ee lagu magacaabay Maxamed Cabdalla al-Qaxdaani inuu ku arkay riyada in Maxamed Cabdalla uu yahayba mahdigii dadka oo dhan ay wada sugayeen oo uu yahay mid ka xoreyn doona jasiiradda Carabta iyo caalamka oo dhan kana xoreyn doona dulmiga iyo fasahaadka wuuna iska aaminay Maxamed Cabdalla al-Qaxdaani hadalkii Juhaymaan sababtoo sidaan hore idinku soo sheegay shakhsiyadda Juhaymaan waxay ahayd shakhsiyad cajiib oo awood u leh inuu ku qanciyo cid kasta waxa uu doono wuxuuna bilaabay intaa kadib Juhaymaan inuu ka fikiro oo qorsheeyo wadadii uu ugu shaacin lahaa adduunka oo dhan inuu soo baxay mahdigii la sugayay wuxuuna go'aansaday in bilowga sanadka cusub ee hijriga uu ka dhigto ballantiisa oo ku fulin lahaa qorshahaas oo ahaa in lala wareego oo si xooga lagu qabsado beydka Ilaahay ee sharafta leh ee xaramka sidaad maqashay waa sax daawade wuxuu qorsheeyay ninkan inuu si xooga ku qabsado xaramka iyo masaajidka sharafta leh ee Maka si halkaas ay dhammaan dadku la baayactamaan mahdigan cusub ee uu sheeganayo markii la gaadhay maalintii taariikhdu ahayd 1 bishii Muharram ee sanadkii 1400 oo ku beegnay 20kii bishii Noofembar ee sanadkii 1979 xilli ay tahay salaadii subax
wuxuu soo galay Juhaymaan al-Cutaybi iyo raggiisii oo la socda masaajidka xurmada leh ee Makka si ay halkaas ugu tukadaan salaadii fajarka iyagoo garbahoodana ku wada naxashyaal. Naxashadaas oo ay ka dhigeen inay ku sidaan meydad dhintay, waxayna u fahansiiyeen oo ay ugu sheegeen dadkii joogay masaajidka inay rabaan dadkan meydadka ay sitaan in loogu tukado masaajidka dhexdiisa, laakiin dhab ahaantii naxashadan gudahooda kumay jirin wax meyda, laakiin waxa ku jiray oo ka buuxay gudahooda hub iyo qoryo. markii sidaas looga baxay salaadiina waxa kacay oo booday Juhaymaan, wuxuuna qaatay mikrofoonkii masaajidka si uu uga warramo dadka warka iyo khabarka uu sido. warkaas oo ahaa soo muuqashada Mahdiga ay dadku oo dhan wada sugayeen, wuxuuna sheegay sidoo kale Juhaymaan in Mahdigan uu ka soo dhuuntay dad cadowgiisa oo soo magan galay guriga Ilaahay si uu halkaas uga bilaabo oo uga amba qaado hawshiisa Mahdiga. wuxuuna soo kiciyay intaa kadib saaxiibkii Moxamed Cabdalla al-Qaxdaani isagoo sheegay inuu yahay Mahdigii dadka Islaamka oo dhan ay wada sugayaan iyo midkii soo cusboonaysiin lahaa diintan. intaa kadibna waxay guda galeen Juhaymaan iyo kooxdiisii la socotay inay halkaas kula baayactamaan Moxamed Cabdalla, waxayna ka codsadeen sidoo kale dhammaan dadkii maalintaas ku tukanayay halkaas inay la baayactamaan iyaguna. waxaana ka mid ahaa dadkii qaar la baayactamay iyo qaar inta ay diideen lagu qasbay oo iyadoo qoriga lagu hayo qasab kula baayactamay markii dambe. arrimuhuna maalintaas waxay ahaayeen qaar aad u cabsi badan oo farihii ka baxay. haddaba halka ay joogtay wakhtigaas oo dhan iyo inta ay sidaasi dhacaysay dowladda Sacuudigu. dowladdii Sacuudigu waxay saragtay iyadoo gacmaha ka xidhxidhan oo aan waxba samayn karin gebi ahaanba, waxayna garan waayeen sida ay uga hortegi lahaayeen dhibaatadan aan hore loo arag iyadoo kale. arrinka kaliya ay samayn karayeenna wuxuu ahaa inay kala hortagaan dhibaatadan awood milatari oo ay weeraraan dadkaas qabsaday xaramka. laakiin u kaadi, miyaanay xaaraan ahayn in lagu dhex dagaalamo xaramka dhexdiisa? haa, waa sax hadalkaasi, laakiin ka hor intaanay samayn sidaas oo aanay kala hortegin dowladda Sacuudiga awoodda milatari, waxay kaashadeen oo ay la tashadeen koox sheekhyadii xaramka ee waaweyneyd ahaa si ay uga siiyaan fatwo banaynaysa in dagaal iyo hub lagala hortaga dadkan haysta masaajidka, laguna dhex dagaalamo oo hub la dhex geeya masaajidka xaramka gudihiisa. waxaana fatwooday shuyuukh aad u badan in lala dagaalamo raggaas oo la joojiyo dhibaatada weyn ee ka dhalanaysa haddii la iska daayo. bilowgiina waxay isku dayday dowladda Sacuudigu inaanay markaba dagaal ku bilaabin ay ku xaliyaan si nabad arrinka, waxayna ugu yeedheen Juhaymaan iyo kooxdiisii inay soo dhiibaan dadka ay haystaan ee masaakiintana ay sii daayaan. laakiin Juhaymaan wuu diiday midaas gebi ahaanba. intaa kadibna waxay la galeen dowladda Sacuudigu dagaal aad u xooggan Juhaymaan iyo kooxdiisii. maalintii taariikhdu ahayd 4 bishii Disembar ee sanadkii 1979 oo ahayd kadib markii goodoon lagu hayay raggii muddo gaadhaysay 2 usbuuc. maalintaas waxaa lagu bilaabay dagaalkii wuxuuna socday ilaa galabkii, iyadoo awooday maalintaas dowladdii Sacuudigu inay la wareegaan goobtii oo ay sii daayaan dadkii la haystayna. waxaana lagu qaaday raggan dagaal sababay dhimashada dad gaadhay 28 qof oo laga dilay Juhaymaan kooxdiisii iyo 12 ka dhaawacmay ciidamadii dowladda, iyo sidoo kale dhaawacyo soo gaadhay dadkii muslimiinta ahaa ee sida qasabka loogu dhaxaystay masaajidka. waxaana gacanta lagu soo dhigay intii ka hadhay kooxdii Juhaymaan oo ku jiray Juhaymaan laftiisu. Mahdiga ninkii sheeganayna wuxuu ku dhintay isagu dagaalkii dhexdiisa. taariikhdu maalintii ahayd 9 bishii Janawari ee sanadkii 1980 waxaa lagu fuliyay xukun lagu dilay seef dadkii lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhacdadan, dadkaas oo gaadhayay 61 nin oo ugu horeeyay Juhaymaan. qaybtii kale ee hadhayna waxaa lagu xukumay xabsi. intaas ayuuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsan tahay.